magaalada Muqdisho xalay iyo maanta dilal ayaa ka dhacay meelo kamid ah dilalkaas oo qaarkood shacab loo geystay halka qaar kalena la sheegay in shaqaale ka tirsan dowladda Soomaaliya lagu weeraray. degmadu waa bari meelaha ay wax ka dhaceen ayay kamid tahay. telefoonka toos waxa ugu jira gudoomiye ku-xigeenka amniga ee maamulka degmadaasi Cabdiwahaab Maxamed gudoomiye hadana maqlayso soo dhawow bal faahfaahin naga sii maxaa ka dhacay waa bari. aadaan ku maqlaa caawa gobolda koor halkii saac iyo barkii ah ayaa waxaa dil lagu geystay wiil dhalinyaro ah qayb ka mid ah degmada oo lagu magacaabo ereeda cali boolay. dilka cidii geysatay weli ma cadda baaritaana socdo wixii soo kordhana insha allah dib baan kasoo sheegi doonaa. wiilka la dilay muxuu ahaa gudoomiye? waa maqal wiilka la dilay muxuu ahaa? wiilka ilaa waqtiganiba asagaba cid garatay male waxaan isaga ku wareejinay sayidida caawa waxaa meydkiisa uu ku baryi doonaa isbitaal madiina. marka wiil uun dhalinyaraa wax cadeyna magaciisii iyo ehelkiisii toona ma hayno waqtigani. marka maxaa qiyaastay ma qof degmada deganaaba mise qof aan deganeyn degmada oo meelo kale uga yimid oo Muqdisho gudaheeda ama dibadda? wallahi degmadu degan yahana ma dhihi karno uu degan yahana ma deganana dhihi ma karno laakiin dadkii deegaanka ee waqtiga ay meesha ku sugnaa iyo intii kusoo baxdaba cid garata ma lahan. hadda howlgallaa ka socda lagu yiri xaafado kamid ah degmada waa bari marka ma dilkaaba la xiriiraa howlgalkiina mise howlgal ujeedooyin kale aad ka leedihiin way? howlgalladu dilkii bay la xiriiraan oo markii dilku goobta ka dhacay ciidamada amniga maamulka intaba way soo wada gaareen. waxaan rajaynaynaa dadkii dilka ka dambeeyay inaan heli doono iyadiyaan baadigoodkeedii waqtigani ku jirnaa wixii nala soo gudboonaadana dib aan kasoo sheegi doonaa haddii ilaahay. waayahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada waa bari Cabdiwahaab Maxamed oo telefoonka toos ugu jira ayuu kaasi ah. dhegeystayaal maanta magaalada Muqdisho waxaa sidii wararkeena ku maqlayseen degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir lagu weeraray gaari dad saarnaa hal qof ayaana dhaawac culus ka soo gaaray. ninka oo la sheegay in dhawaan uu ka soo laabtay qurbaha isla markaana waxa uu aabaha wasiirka wasaaradda caafimaadka ee maamulka maamulka la yiraahdo Galmudug oo magaalada Muqdisho iyadana ku sugan. sidaas oo kale suuqa Bakaaraha ayaa lagu dilay qof dumar ah oo caan ka ahayd gudaha suuqaasi ku ganacsan jirtay. waxaa ka waramaya qof kamid ah dadka deegaanka suuqa Bakaaraha waxa uu waramay wariyaheena Cali Mahdi Ibrahim Kadiye. maamada iyo aaba waa indhool waxa uu fadhiyay gurigiisa hortiisa geed ku yaala ayaa waxa uu yaalay sariir uu maaragtay halkaas uu ku leersado masaajidka marka uu ka yimid adigu u timid markaas waxay tiri soo bax gudahan ahrina sababta uma jeedo waa indhool markuu soo fariistay ayaa waxa uu ka war helay mar kaliya 2 xabadood oo dhacay. labada xabadood oo dhacay markuu ka war helay xogaa meesha kelida wuxuu yiri waxa iiga dhacay wax aad u xanuun badan waan garan waayay waxa shiriyay xabadaha dhacay ma kugu dhacay kadibna wax dhowr ku dhacayaan dareemay uu yiri kadibna waxa dadkaas ku soo buuqay markaas la yiri maaragtay eeday ku dhacday xabadaha 2 xabadood oo madaxa looga dhiftay halkaas ay ku nafbaxday goorta uu ka dhacay waxa waaye suuqa Bakaaraha meesha daawada ilaa ay hadda waan garan laanahay waxa kale hadda dee lagu aanay kulli macnaha ma jiraan ciidankaasi mudada ee family-gu ay ka ana Aisha mid ahaayeen wada deganayeen oo dhalinyarada ciidankaana dee guriga ay ahaayeen oo kale oo maaragtay raashinkooda iyo wax walba iyo dad ana wada noolaa. waaya marka wax ganacsi oo qama jirto iyo waxyaabo kale oo miyaa jira marka maya maamo gurigeeda joogto carruurteeda korsatay meeqa carruura ayay ka tagtay oo maamada ay ka guriyoto u joogta? 3 gabdhood iyo 2 wiil ay ka tagtay. ilaahay u naxariisto jannadana ilaahay ka waraabiyo. waxaan ka xaqdaranaa dishay. marka waxay sheegtay intaan wareysiga ku guda jirnay in aabba uu yahay indhool eedana ay u dhaxday. marka aabba xaaladiisu waa sidee maadaama dhacdadan uu la kulmay oo goobjoog uu la ahaa oo xaaskiisii la dilay marka xaaladiisu hadda waa sidee aabbe? xaaladiisa ma fiicna aad u murugaysan yahay waa qiyaasi kartaa maaragtay من مانتا سيديتن iyo 7 sano jira oo indhool ah manta asagoo garaf oo garan karta xanuunka ay leedahay